Okay, now let's look at the domestic political situation in Eritrea. When are elections going to be held in Eritrea? There were elections scheduled for 2001. They didn't take place. When is that going to happen? What elections? Elections in Eritrea. We'll see what the elections in the United States will bring about, and we will wait for about 3-4 decades until we see genuine natural situations emerge in Eritrea. You're saying Eritrea is going to wait 3 or 4 decades before it holds elections? Maybe more, who knows? But isn't that, it... of course, depending on what you call elections, what you believe in elections, what you think in terms of elections. waxay tani soo xasuusay runtii dowladnimada Soomaaliya madaxweyne dowladdaada iyo dadweynaha shacabka ee reer Jabuuti ayaa dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay waxaan tagay Jabuuti waxaan xarig aan ka soo jarnay dekadii weyneed iyo maxaan ku yiraahdaa meeshii marsadii commerciga oo socotay muddo 5 sano ah socotay yaan xarig ka soo jaray waxaan idin sheegayaa waxa dhagax dhigay ra'iisul wasaarayaashii dalku soo maray nin ka mid ah soo dhagax dhigay anna xarigan ka soo jaray intaasi waxa u dhaxeeyay dawladda Soomaaliyeed 5 dawladood oo isbedelayay Ismaaciil Umar Geele wili waa joogaa oo projectkii uu bilaabay waa dhamaystiray annaguna waa iska gadinayni waa iska rogayni macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha inaan wax ka baranno waxa xaqiiqo ah oo ku daraya dawladdan isaga soo dhex dhigay kadibna waxay soo martay 5 madaxweyne iyo 12 prime minister hal dekad yuugu yimid isagu wuxuu dhisay 4 dekedood oo kale iyuu dhisay waxaa ku baxday $1 billion annagu siyaasaddan baranayna intaas waa isla rogayna madaxweyne waxbaan ka baranaynaa dadka reer Jabuuti waxbaan ka baranaynaa insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho inuu ilaahayna siiyo muddo intaasna annagu naftigeena dalka inaan ku dhisano hadduu eebbi yiraahdo wassalaamu calaykum